aan ku soo dhaweeyay imikana casha ayban oo ah gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye inagoo waqti dambe joogna iyadoo inoo soo gaar bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waad mahadsantihiin inkastoo nu cabaar fadhino ku caajisnay hadalkana intiisii badnaa la qaatay oo aanan odhanayn dee wax badan oo hadalka raggii uu dhameeyey laakiin wixii waddanka ka jiray iyo horumarkii xisbigu gaadhay ama dawladdu gaadhayna uu sheegay khada agaasimihii iga horreeyay uu inoo sheegay ood wada dhagaysateen laakiin halkan waxaan isku soo taagay maanta inaan horta u mahadnaqo salaamana madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland maxamed axmed maxamuud siiraanyo oon leeyahay haddaan gobay aqaano waan u gobyi lahaa laakiinse aftahayad gobayaa ma ihi oon u gobyi lahaa oon leeyahay waa geesi garasho leh aqoontiisuna maanta dee qof walba u caddahay oo ayna ka daaxsanayn sida uu u maareeyey ama uu wax uga qabtay arrimihii kusoo food yeeshay ee ka dhacay waddankeennii idinkuba ayna idinku seeganayn oo dee warbaahintu ay tviyada iyo aad ka wada daawateenba ama websaytada sidii kartida lahayd ee uu uga baxay arrintii adkayd ee kusoo food yeeshay iyo sidii uu geesinimada lahayd ee uu u doortay inuu yidhi golahaasi wixii uu ku dhawaaqaan maanta anigu raacsanahay horta taasi waa taa waan uga hambalyeynayaa halkanna waxaan hambalyo kale u dirayaa mujaahid muuse biixi cabdi oon leeyahay kusoo dhawow xilkaa lagu magacaabay oon leeyahay ilaahay ha kaaga dhigo xil fudud hana kugu guuleysiiyo oo ilaahay ha kaa dhiga madaxweynaha mustaqbalka oon leeyahayna ilaahay idankii waa xil adag ninka yidhi ummad baan xukumayaa ilaahay se ha kugu garab galo intii xusbigan ka dhinnayd ama dawladda ka dhinnayd reer somaliland xusbiga iyagana ah inuu dhammaystiro ayaan filayaa oo uu yahay geesi maanta u qalma isaguna aniguna halkan waxaan leeyahay haweenkayaga ama haweenkan anigoo ah guddida fulinta ku jira UK haddana waxaa lay magacaabaa un garabka haweenka se waan ogolahay inaan garab haweenahay laanna haweenkan ku faanaa inaan haweenahay shakhsiyadayda haweennimaan ku faanaa haweenkana waxaan leeyahay ha ka baqanina ilaa baarlamaanka ilaa wasiirnimada dee kolaynu hadda madaxweynahana isku soo sharaxno mustaqbalka dambe waxba kama qabo xusbigana waxaan ugu jiraa inaan noqdo musharax madaxweyne future-ka waxaan jecelahay inaan iyadana intaanan ku soo dhaweyn Axmed Carwo aan Yurub qaalib ku soo dhaweeyo iyaduna weeri nooran doonta soo dhawow Yurub aad baan idin salaamayaa ka soo qayb galayaasha xafladda tan aadna waxaan ugu mahadnaqayaa qabanqaabiyayaashii waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa asxaabtii waxay ahaayeen laan kale oo xisbiyo kale iyo intay u dhadhami waayeen soo dhadhamiyey meelo badan dabeedna shaqayn weedo caawa kulmiye ku soo biiray runtii aad iyo aad baan usoo dhawaynayaa xisbiguna wuxuu xisbiga laftiisu wuu u baahan yahay dhiigga cusub dad khibrad leh dad gidaaro badan soo taabtay laakiin go'aan gaadhay iminka oo waayaaraga muxuu ahaa aad baan runtii usoo dhawaynayaa aad iyo aadna waxaan u salaamayaa oo aan muxuu ahaayey halkan salaan uga gudbinayaa musharaxa madaxweynaha mustaqbalka muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan saylicig madaxweyne ku-xigeenka somaliland ee maanta xisbiga hawshiisii hadday si fiican u bilaabantay laamo badan baa muxuu ahaayey diyaar ah in ay iyaguna xafladahoodii qabsadaan dad fara badan oo cusub oo laan walba way joogaan kusoo biirayaa markaa dee xafladuhu way isdaba soconayaan tayiiska ma aha tii ugu dambaysay insha allahu tacaala meelo badan baynu ka abaabulaynaa ciddii doonaysa ee gunti iyo gabadhi iyo gunaanadka aynu marayno iyadoo barashar badan uu jiro rag fara badan ee ay jiraan egas wasiir maxamed qaasim oo halkan jooga ayaan jecelahay inuu ku soo dhaweeyo wasiirka Axmed Carwo falyatafadal maxamed qaasim waa wasiirkii hore ee warshadaha iyo xukuumaddii cigaal soo dhawow maxamed kuna soo dhaweey markaa wasiirka بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين
caawa horta xafladan aadka qiimaha u leh ee taariikhiga ee halkan aynu madashan aynu joogno caawa aad bay farxad u leedahay oo qalbi walba ay runtii hididiilo iyo farxad u gelinaysaa raggii ka soo shaqeeyey ee soo abaabulay haddii ay yihiin guddoomiyaha iyo guddigiisa UK haddii ay yihiin gaar ahaan guddida xaafadan East London ee aynu joogno iyo haddii yihiin mas-uuliyiinta kale ee daafaha kaleba wada joogay maanta caawan halkan ku xaadirka ah aad iyo aad bay ugu ammaanan yihiin oo aan ugu mahadnaqaya waa laynoo sheegay mawduuca xafladdu waxa uu yahay haddii aan markaa toos u galo iyadoo ay joogaan akhyaar fara badani rag iyo dumarba salaan kadib waxaan leeyahay ereyga hore madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu sameeyey raadraac taariikhiya oo ubadkeen tagooga ku jira iyo kuwa jooga ee maanta raadqaadkiiba ay wax ka baranayaan oo ay dugsiyada ku dhigan doonaan ayuu ka tegey maanta wuxuu koobsaday oo isla helay mar keliya 4 shay ta hore dalkan oo wuxuu soo maray iyo dhibtaynu u galay iyo nafta u baxday iyo hantida lagu waayay iyo halgankaynu galay loo yahay ayuu dibadda ugu baxay oo uu hoggaamiyey oo uu ku guulaystay taasi waa ta koowaad ta labaad inagoo dawladda oo gooni u taagan ayuu madaxweyne Siilaanyo hoggaamiyey dalka oo uu ku suntamay oo uu noqday xukuumaddii ugu waxqabadka badnayd ee ina soo martay taariikhda intii ay soo jirtay Somaliland taasina waa ta labaad arrinta saddexaad waxa weeye sida uu yeelay ee madaxweyne xukun ka degaya naadirihi uu yeelo ayuu maanta iyadana ku suntamay oo uu sameeyey oo gacmo uu aaminay oo mas'uuliyadda dalka iyo dadka iyo diintaba ku aaminay ayuu kaga tagay oo ku dardaarmay arrintaasi arrin waxa weeyaan sidaa u suntan taa haddii aan intaa ku dhaafo madaxweynuhu ku ammaanan yahay waana lagaga dayan doonaa taariikhda arrinta kale waxa weeye haddii niman madaxi noo ahaa oo xisbiga ka mid ahaa oo iyagu iska tegey iyaga oo xilalkii hayay mas-uuliyaddii haya si ay ka noqotayba haddii ay dibadda u baxeen maanta waxay ahayd oo ay taariikhda dalkana wax ku leeyihiin inay dalka iyo dadka u tudhaan waayo xisbigii ay ka tirsanaayeen iyo mas-uuliyaddii ay hayeen kamay bixin waanu ku jirnaa bay leeyihin dee hadday ku jiraan iyagu si ay ka tageen inay haddana caayaan oo ay aflagaado iyo hadallo aan meesha qaban iyo madaxweynihii sidaa ku suntanaa inay wax ka sheegaan iyo aflagaado meesha may qabanayn qoladaa fariintaan u diraya waxa weeye waar walaalayaal kaalaya xisbigu waa xisbigiinnii shalay waxbaa dalkan ka qabateen maantana wuu idiin baahan yahay kulmiya waa kiisii soo noqda ayaan kuwaa fariintaasi ayaan u diraya halkan Axmed Xasan Caruur ayaa jooga waa la taliyihii madaxweynaha ee xagga dhaqaalaha sidoo maxamed ii sheegay uu ku soo dhaweynayaa falyatafadal muxuu ahay وسلامتي الله يسلمك بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وحا شرف ويني حفلة إيست لندن إن ما أنت جوبشوكا هذا أنا جوبشوكا ها ولو وينك جيتشري دورشدي للدورتي الحسب دورتي قدوميها يا مدحوينك وحيجينك المرشحين تكلمي ينون نوضي حلقة كان أنو همبلية دوا ودمية همبلية حلقة ودري مايو لكن إذا كان إذا قدومية همبلية دي أو في ديسمبر بان إذا قدومية مدحوينها يو مدحوينك وحيجينك يا قدوميها همبلية وناكسن أو شرف له أو ريكول مياه أيا ودرتين
intaa in ka badan baa dadka gudaha joogeen aanu ahayn siday xisbigeenu yahay cid isu sheegi mayso xisbi aad iyo aad u dimuqraadiya xisbi marxalado badan soo maray xisbi aan kala bixin oo dadkii labadii xisbiye mucaaridka ahaa albaabadii ay furteen ee ay yidhaahdeen waxaa inagu soo jabi doono reer kulmiye inay imaka albaabadii intay dib u xidheen ay yidhaahdeen dad baa inaga yaacayaan joojino waxa weeye maanta waddan cid baa ka soo cararta maalin walba ucud waa laga soo baxaa albaabadii ay furteen bay dib u xidheen oo yidhaahdeen innagaa laynaga cararayaae albaabada inoo xidha labada xisbi midna ma qabanin shirweynihiisii midna ma qaban golihiisa dhexe magacyadii may gudbin xisbiga ucud laba nin baa qaybsaday golihii dhexe ee xisbiga dhan dimuqraadiyadna way sheeganayaan cidna waxbay ku eedeeyaan laba ninoo keliya yidhi annagaa magacaabin adna intaa qaado nus adna nus baan qaatay dimuqraadiyadday sheegayaanna waa taasi inaguna waxaynu ahayn dad degmo kasta iyo gobol kastaba leh oo dadku ay iyagu soo dirteen dadkii ay soo dirteen ee weliba madaxweynuhu wuxuu sameeyey maadaama madaxweynuhu uu gartay inuu xilka wareejiyo uu dad kaga tago ninkii uu toojka u dhiibi lahaa imtixaan buu mariyey imtixaankii ugu adkaa wuxuu mariyey maxaanku idhahdaa muuse biixi garabkiisa ayuu imtixaanka ugu adag mariyey kal hore wuxuu eegayay siday uga soo baxaan samir iyo dulqaad bay kaga soo baxeen carqaladihii faraha badnaa ee loo geysanayay ee badheerhkaha waxay ahayd intee bay dulqaad leeyihiin waa kelmaddan askarta la idhaahbana sas bay dadka qaarkood ka qabaan marka antuso dulqaadka ay leeyihiin nimankaasi way u samreen colkii garabkii kale ee la tartamayey imtixaan yar oo basiida oo aan xataa elementaryga la marin buu u dhigay kii bay ka yaaceen markaa wuxuu yidhi ummadda makaasi qoladaasaan kaga tagaa isagoon cid odhan oo qof keliya la hadlay ayuu qofkii intuu u tegay iyagii murashaxiinta ahaa ayuu ku yidhi madaxweynaha sidaa iyo sidaa yidhi waxay garan kari waayeen war aanu u tagno madaxweynaha oon hubsanno anigu maalin baan ka hadlay iyadoo aad iyo aad dadka qaar leeyihiin madaxweyne dhexdhexaad ka noqo arrintaa waxaan u sheegay madaxweynuhu waa inay ceeb ku tahay in la yidhaha dhexdhexaad noqo nin xisbigiisii uu isagu dhisay uu madaxweyne ka yahay doonayo inuu doorasho galo dhexdhexaad noqo waa qalad nin haddaad doonayso inaad doorasho doon tahay waa inaad tidhaahdaa madaxweyne aniga ay taageeraan kaa doonaya laakiin inaad tidhaahda dhexdhexaad noqo cidna ha taageerin dee wuxuu ku arkaya nin aan wax doonaynin haddii ninka wax doonaya madaxweynaha waxbuu weydiistaa haddana waxay yidhahdeen garabkii madaxweyne kii wax ku weydiisana waxaa siini bal gardarrada intaa la egeeg annagu waxba ku weydiisan mayno ee dhexdhexaad noqo kii ku weydiisana haddaad raacdo waad eexatay adduunyada ilaahay dee garsaa loo qaado weligan maynaan arag halkay ka odhan lahaayeen madaxweyne wasiiradaadii waanu kula shaqeyno brogaraamkaasaan uu wadnaayna taageer ayaa waxay yidhahdeen midkaa inaha taageeri garabkii kalena waxay yidhahdeen madaxweyne kaama maaranno annagu la taliyaal waxaanu ahayn dhowra anigoo la taliyaha dhaqaalaha ah amaal miisaan oo la taliyaha dumarka ah maxaanku idhahdaa dhimbiil oo ah la taliyaha xisbiyada maxamed qabo oo ah la taliyaha doorashooyinka cumar juxood oo ah la taliyaha khaaska ah daa'uud khayre oo la taliyaha bulshada inta yadayaasoo la taliyaba waxaanu madaxweynaha kula talinay inuu qaato cidduu talada u dhiibiyaa tahay ciddii abaalka ku lahayd eenay noqonin cidduu isagu abaalka ku leeyahay wasiirada uu magacaabay madaxweynuhu isaga abaal ku leh iyagu abaal kumay lahayn laakiin abaal waxa ku lahaa dadkeennii xisbiyahanka ahaa ee intiina halkan joogta iyo inta gudaha joogta ee u dadaashay ee ku hawlgashay inuu madaxweynuhu noqdo madaxweynuhu doorashada ku guulaysto intaynaa reer kulmiye ahayd baa abaal ku leh abaal kuma leh nin xil ku noqday kulmiye nin markuu xilka qabtay kulmiye ku noqday abaal kuma leh waxaa abaal ku lahaa intaynii inagoo halkaa joogtay u halgamaynay ee u dooranay inuu markaasi madaxweynuhu aanu simin nin isaga abaal ku leh iyo nin isagu abaal ku leeyahay taana si odaynimo ah marnaba umuu kaambeyn garayn oo umuu odhan muuse ha la raaco wuxuu yidhi raggaa golaha dhexe ka shaqaysta ninkii ii keena taageerada ugu badan markuu madaxweynuhu leeyahay dhexdhexaad baan ka ahay
waxay ahayd waa nin walba itaalkaaga muuji xisbigii waa kaa golihiisa dhexe u tag bal cidda ku soo raacsan tus awooddaada ismuuji sidii waayeelka ayuu ninkii awoodda ismuujiyey ee golaha dhexe raaceen ayuu isaguna u gartay inuu taageero gacantiisoo keliya u taagay laakiin nina kuma qasbino waa idinkii arkayay wasiirkii warfaafinta oo garab fadhiyo muuse oo ay u dhaxeeyo muuse bixo keliya inuu gacanta diidmada taagay cid alla cid wax ku tirina ma jiro 7 qof oo keliya diiday ninkay diideen 7 qof in la yiraahdo wuxuu ku helay afduub waa yandara weey waayo waxa weeye bini'aadanka waxa weeye maalintii hore madaxweynaheenu wuxuu kaga tagay 8 cod maalintan dambana waxa laga helay 7 cod baa diiday haddana dadkii uma dhadhacsanaa hadday maalin kaliya ay hayaan taageerayaal halka intay soo fadhiisiyaan 30 nin oo